السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن لما صاحب القيمة أبدا يكون حنا كسرنا كستو أوفيشال فضلا جانا كدا كل سبتاي سيسكر نو سارسيدو كلنا كمبل الكفرو سيمر كستا كوسو كلام المقالة حساب بدنا كلا كوسو كوبينو أكو ما سنتا يدي هنا جوكتي جانا فضلا المقالة كلا نو سارسيدو كلنا سي شركة سو مقالة كوجارة صاحب بدل برنامج كلمات وحكوسو قادنا أفلام حساب بدل هوا جوهرية سبستانka caanka meesha abu ay ku dhawaaqay filimkiisa cusub kaasoo lagu daawan doono luqadaha Tamil ee Telugu sidoo kale filimkaasi weyn ayaa loo sugay maadaama meesha abu aad loo xiiso qabo sidoo kale filimkiisa ugu dambeeyay oo markaas sarkaaru faari bataa xadigan oo ka noqday filim markaas samhiida oo markaa burburka ama falowka karoon sidoo kale filimkiisa markaa lagu magacaabo markaa hadda lagu magacaabo SSMB Tonight sidoo kale filimkan wali magac khaas ah loo bixin oo markaa wax lagu yaraa meesha abu filimkiisa 20 sidoo kale filimkan xisaab badan oo filim isku jira action iyo drama halka filimkan director iyo writer markaa sheekada qoran ninka lagu magacaabo Trivikram halka uu producer ka yahay ninka lagu magacaabo Radha Krishna waana filim xisaab badan sidoo kale shirkadda lagu magacaabo Harris Sin Creation ay isla maalgelinayo shirkadda lagu magacaabo iyo ninka lagu magacaabo Radha Krishna filimka maalgelinayo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Pooja Hajda ayaa filimka ka soo muuqan doonta hore xidigan filim badan oo ugu soo sameysay waxay kala soo muuqatay filimkii marka 2019 la daawaday Maharshi haddana filimkan ay xidigtaan ku midoobeen sidoo kale gabadhan waxay ka mid tahay superstarada ugu awoodda badan marka la joogo dhanka fanka Telugu sidoo kale xidigtaan waxay soo laabtay dhankaasi Bollywoodka haddana gabadhan waxay noqotay gabar markaa Pan India star marka xitaa fanka Hindiga ka dhaxaysa shirkadooda marka laga soo codsaday xidigtaan filimada la sameeyay sidoo kale filim badan xiiso badan ayaa soo socda xidigtaan hawar ugu horeeyay filimka Salman Khan la soo wado daawan doono December marka Salman Khan la soo wado sidoo kale hadda filimkan ay sameeyay waxa ku jira gabar lagu magacaabo Samyukta Menon sidoo kale filimkan waxa muusikada qaraacay Saman oo markaa muusikiska markaa ugu caansan dhanka marka la joogo fanka Telugu sidoo kale Trivikram wuxuu ka mid yahay director ugu awoodda badan marka la joogo dhanka iyo Telugu sidoo kale wuxuu ka mid yahay directorada ugu guusha badan marka la joogo dhanka fanka Tollywoodka sidoo kale filimada oo classic ah sameeyay waxa uu horeeyay filimka 2020 marka Allu Arjun sameeyay lagu magacaabo Alaafay Kubadhuru kaasoo noqday all time blockbuster iyo sidoo kale filimka 2008 la daawado marka hogaamiyay Jalsa filimkii Jalsa hogaamiyay Pawan Kalyan sidoo kale atarkan filimada oo sameeyay waa filim marka classic ah sidoo kale sheekadu aad u wanaagsan tahay sidoo kale filimka duubistiisa way bilaabatay waxa ka bilaabatay dhankaasi Hyderabad sidoo kale filimkan wuxuu qorsheeyay marka lagu soo gabagabeeyay 6 bilood xaaqada dambe marka filimka la daawado si markaas superstarka marka halkii sanad wuxuu keenaa marka hal filim hadana qodobka 2020 wuxuu la yimaaday filimkiisii Sariru oo marka ku xifaatay Barkach Raj sidoo kale 2020 saameeyay corona COVID-19 ayaa jiray sidoo kale filimkiisa sarkaaru faari bataa iyo shaqadiisa waday sidoo kale hadda 2020 wuxuu la yimaaday filimkiisa sarka faari bataa kaasoo ganacsi ahaan guuleystay sidoo kale hadda filimkan ayuu ku xijinayaa marka SMBC Teelato lagu yeero asxaabta filimkan waxa ka soo kordhana way la socodsiin doonaan halka kaas oo macluumaadka filimka ka soo kordha saaxiibada qiimaha badan barnaamijkan xiga filimka ku soo qaadanayna waa filimka lagu magacaabo Kabsa ee hogaamiyalka yihiin xidiga lagu jecel yahay Kija Sudeep oo ka soo jeeda dhankaasi gobolka Karnataka oo fanka loo yaqaan Sandalwood sidoo kale filimkan waxa ku weheliyo ninka lagu magacaabo Bendra Rao oo markaa jilaa marka ka soo jeeda dhankaasi fanka Karnataka sidoo kale filimada doorar kala duwan ka qaata hadii noqdo dooradka la rimay sidoo kale doorarka hogaaminta inta badan filimada uu ka qaata sidoo kale filimkan xisaab badan waxa tirshowgaadka xidigta lagu magacaabo gabadha lagu magacaabo Kajal Agrawal oo fanka dib ugu soo laabanaysa maadaama Titanium Aroskeeda xidigtan marka fanka wali sidoo kale film ay sameeyeen sidoo kale xidigtan filmo cusub ay soo sanadka 2023 maadaama xidigtan filimada ugu dambeeyay markaas duubista ku wada ay joojisay hadda ay filimada marka asi aan baqaan doonta sidoo kale filimkan doorar muhiim ah oo support role-ka waxa qayb ka Barkach Raj sidoo kale waxa qayb ka ninka lagu magacaabo Manoj Babay oo markaa dhankaasi Bollywood ka yimid loo yaqaan doorar filimada inta badan kuma tale sidoo kale doorar xisaab badan filimka la isku keeno marka laga awood badan filimka ka soo muuqan doonta si marka filimka uu noqdo Pan India movie waxa lagu soo dooran doona doorar support marka door muhiim ah ka qaadan doona sidoo kale la xifaaltami doona xidiga lagu magacaabo Kija Sudeep oo bariyahan ku jira guulo lixaad sidoo kale filimada ugu dambeeyay xidigan sameeyay noqday filmo xiiso leh sidoo kale ganacsi balaana sameeyay guulo weyn ka soo xariiray dhanka tiyaatarada sidoo filimadaas waa filimkii Kutiga Battery qayb saddexaad oo Kutiga oo la daawado sanadii 2020 kaas oo noqday super hit sidoo kale waxa uu yahay filimkiisa Kangana Fikran Tirana oo la daawaday bishii July ka soo gudubnay kaas oo noqday hit dhameystiran sidoo kale ganacsi ahaan guuleystay oo ka talaabo ku dhawaad sidoo kale filimka guul weyn ka soo hayay dhankaasi Karnataka wuxuu noqday filimka labaad ee lacag ugu badan ka soo xareeya tan iyo filimkii KGF Chapter 2 marka ay ugu badan lacag ugu badan ka soo xareeyay
filimka labaad oo ku soo xigo marka wuxuu ahaa filimka Fikrad Tirona oo hogaamiye ka yahay Kijasudi haddana filimkan cusub ayuu ku dhawaaqay xidigan oo markaa director-ka yahay ninka lagu magacaabo Ari Jandaru xidiga fara badan la isku keenay sidoo kale filimkan waxaa ku jira door muhiim ka qaadan doona Samuk Tarinkini oo hadda uu noqday xidig markaa saameyn badan ku yeeshay dhankaas Koonfur Hindiya sidoo kale filim badan sameeyay filimkiisa ugu dambeeyay waxaa filimkii Yanaayo kala soo maqaro fijay sidoo kale dhankaas talagu wuxuu la sameeyay Mahesh Babu filimkii ahaa Sakaru Fari Batalo daawaday bishii May 2020 haddana xidigan wuxuu noqday xidig saameyn badan ninka lagu magacaabo Samutri oo filim badan ka soo muuqda wuxuu lagu badan filimada talagu hadda filimkan Kabsa oo markaa hogaamiyeenka Kijasudi ninka lagu magacaabo Bedra Raw ayuu door muhiim ka qaadan doona sidoo kale xidigan wuxuu noqday xidig markaa Koonfur Hindiya ka wada dhaxeeyo marka filimada markaa laga leeyahay dhankaas Koonfur Hindiya ka soo muuqda sidoo kale filimka Kabsa wuxuu noqon doonaa filimka First Canada marka filimka ugu horeeyay marka lagu daawan doono luqadaha kala duwan 7 luqad lagu daawan doono waana filimka ugu horeeyay marka 7 luqad lagu daawan laga leeyahay dhankaas Karnataka ama fanka Canada marka laga leeyahay sidoo kale filimka director-ka Ari Jandaru wuxuu noqon doonaa filim 7 luqad lagu daawan doono 5 luqad marka laga hadlo dhankaas Hindiya iyo sidoo kale luqadda Ingiriiska ayaa filimka lagu daawan doonaa waana filim xiiso badan marka qoseeya fariinta gaangisternimada aniga fariinta gaangiska iyo filimka qoseeya waana filim ku soo laabanaya Kijasudi sidoo kale filimka sheekada waxaa qoray director-ka lagu magacaabo Ari Jandaru sidoo kale filimka luqadaha kale lagu daawan doono waxa kamid ah luqadda Marathi marka laga hadlo dhankaas Mumbai sidoo kale luqadda Bengali ama dadka luqadda Bengali lagu daawan doonaa waana filim xiiso badan wuxuu soo bixi doonaa sanadka 2023 sidoo kale filimka wali shaqadiisa way socotaa waxay ka soo koray asxaabta way la socodsiin doonaan kala soo macluumaadka filimka ka soo kordha filimkeena xagaa soo qaadan waxa lagu magacaabo Bathuthala waxaana hogaamiyay ka Silbersan STR sidoo kale filimkan Gautam Kartik ayaa filimka door muhiim ka qaadan doona waxaana ay faltami doonaan Silbersan TR sidoo kale filimka gabar lagu magacaabo Priya Bafani Shankar ayaa filimka doorka tirshada matali doonta oo marka Gautam Kartik filimka shaashada ku midoobin doonaan sidoo kale filimkan waxa laga soo minguuriyay filimkii Mufti marka laga lahaa dhankaas fanka Canada ama magaalada taxaruntooda magaalada Bangalore sidoo kale filimkan hore waxa uu sameeyay xidigaha kale ninka lagu magacaabo Dr. Shiva Rajkumar iyo Siro Malali ayaa filimka ku xifaaltamay haddana soo Tamil ayaa dib loo sameeyay doona waxa loo bixiyay magac lagu magacaabo Bathuthala halka hore filimka uu watay magaca Mufti sidoo kale filimkan xisaab badan waxa director-ka ninka lagu magacaabo Shankar yani Krishna ayaa filimka director-ka sidoo kale filimkan xisaab badan lagu daawan doono luqadaha Tamil iyo Telugu saxaafada filimka hore ay u daawanaa filimkii Mufti marka lagu soo turjumo luqadda Soomaaliya waa doorkii marka Dr. Shiva Rajkumar waxa qaadan doona ninka lagu magacaabo Simbu actor-kaas ayaa doorka gangster ku matalaya halka Gautam Kartik qaadan doona doorka askariga ahaa marka Sirumalaga filimka ku matalay oo marka askari qarsoon marka ku biiray burcada soo marka uu soo saaray dambiga marka uu leeyahay ninka lagu magacaabo Simbu filimkaas waa filim xiiso badan ganacsi ballaaran marka ka sameeyay dhankaas Canada haddana waxaa la filayaa filimkan inuu ku door adag ka qaadan doono ninka lagu magacaabo Silbersan TR oo filimkan si cadaalad u duubi doono marka uu doorkii marka Dr. Shiva Rajkumar uu ka rashay doono oo marka shaashada ku soo galan googaas doorkan gaysternima sidoo kale filimka asagoo Telugu ay dib loo sameyn doona waxaana qaatay ninka lagu magacaabo Nandapuri Krishna ama waxa filimka loo bixiyay MBK 107 hore ay soo hadalnay sidoo kale hadda filimka asagoo Telugu ay dib loo sameynaya sidoo kale Tamilna waa la sugayaa balse waxa soo hareynaya filimka marka uu Telugu lagu sameeyay NBK hogaamiye ka yahay waxa la daawan doona dabiiqada sanadka 2020 sidoo kale filimka uu hogaamiye ka yahay Bathuthala oo marka Silbersan hogaamiye ka yahay waxa laga yaabay marka loo dibdhigo sanadka 2023 maadaama actor-kan maanta iyo Khamiista marka filimkiisa cusub soo bixi doono oo marka maanta filim cusub tiyaatar loo saaray sidoo kale xidigan filimkiisa ugu dambeeyay maanadu oo marka la daawo sanadka 2021 kaas oo noqday blockbuster weyn bandhigiisana aad loo amaanay sidoo kale Jilin Keer saraw ka sameeyay filimkaasna aad loogu amaanay sidoo kale filimka ganacsi ballaaran ka sameeyay dhanka tiyaatarada hadda waxa la filayaa filimkiisa maanta oo Khamiista tiyaatarada la saaray inuu marka sheekaysa ay wanaagsanaato maadaama filimka fariintiisa ay tahay filim gangster marka filimka sheekaysa ay wanaagsanaato waxa laga yaabaa marka ganacsi ballaaran marka ka sameeyay dhanka tiyaatarada saxaafada filimka lagu magacaabo Bathuthala intaas ayaa ka cusub waana filim xiiso badan marka laga soo minguuriyay filimkii Mufti oo la daawado sanadii 2018 in hogaamiyalka Dr. Shiva Rajkumar ninka lagu magacaabo Siro Malali sidoo kale filimkan xisaab badan shirkado badan ayaa wax ka noqonayaan maalgeliyaasha filimkan maadaama filimkan ay fariintiisa gangster marka shirkado badan ayaa markaas maalgashanaya ama marka iska kaashaday in marka filimkan sameeyaan ama remake ama dib u sameeyaan marka filimkan asxaabta filimkaas ka cusub waxa ka soo kordhana waa la soo siin doonaa halka kala soo macluumaad ka soo kordha fadlan hadii aad muuqaalka sheeg noo saar wana ku maasantahay daawashada muuqaalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh